laba oday oo horraantoodii saaxiibo ahaan jiray ayaa maalin maalmaha ka mida kulmay markaas bay sheekaysteen mid baa wuxuu kii kale ku yidhi hebelow weligaa musiiba ma ku soo martay markaasuu waxa uu ku yidhi haa waxa ay soo martay musiibo tii ugu darnayd ayaa soo martay markaas buu yidhi musiibada iga sheekay sidee u dhacday waxa uu ku yidhi waxay musiiba iigu darnayd markii wiilkayga curad uu mas iga qaniinay oo uga dhintay musiibo taas ka weyn weligay ima soo marin buu yidhi isagii baa su'aashii lagu soo celiyo waxaa la yidhi adigana weligaa musiiba ma kugu dhacday markaasuu waxa uu yidhi weligay musiiba iguma dhicin balse mar bay cirib i saartay suu yidhi bal iiga sheekay sidii cirib kuu saartay markaasuu waxa uu yidhi waxaan lahaa jiray laba xaas labada xaas midi way yarayd oo markaa ayay xaamilo ahayd oo waxay ahayd mid aan dhowaanta soo guursaday midna ilmo badan ayay haysatay iyo xoolo badan tan yar laftigeedu xoolo ayay haysatay tan weynna iyana xoolo ayay haysatay isku berrinna way degganaayeen maalin maalmaha ka mida iyada oo rooroob ay tahay ayaan ka safray oo maaragtay meeshii ay joogeen rati intaan watay baan safar galay buu yidhi waxaan ku maqnaadaba 3 maalmood markii aan maqanahay ayaan soo laabtay waxaan ku soo hormaray reerkii weynaa oo ilmaha iyo xoolaha badan haysatay saamarkaan imid waxaan arkay in aan hal nafle ka noolayn dadkii meeshii joogay iyo duunyadiiba oo waxaa ku habsatay oo ku dhacday biriq ilaan waa xilli rooroob ah anigoo aad u naxsan aadna u yaaban ayaan soo tegay oo waxaan isiri bal reerkii kale ku soo quuso sidaan u soo socday baan imid reerkii kale waana isku berrin oo waa meel isku muuqata markaas baan waxaan arkay buu yidhi gabadhii oo suuxsan iyo xoolihii oo dhammaantoodba le'day oo iyagana ay ku dhufatay biriqdii gabadhana hanfidii iyo kulaylkii iyo malaha inta ku dawaqantay ayay suuxsan tahay waana xaamilo waxaan dareemay buu yidhi markaa in aan gegi maran taaganahay maxaa yeelay xoolo oo dhan waxa aan ka haystaa halkaa rati oo ii hoggaansan dadna waxaa iiga haray gabadha iyo cunuga ay uurka ku sido markaas baan waxaan go'aansaday buu yidhi in aan la qabto reerkii dhalay in aan xaggeeda la aado oo halkaa aan qabto ayaa ii soo baxday buu ratigiiban inta u gureeyay gabadhii ilaan waa xaamile ayaan saaray buu yidhi markaas baan waxaan la aaday gabadha ciddeedii xaggeedii waxaan socdaba markaan in doora socday ayay gabadhii fool qabatay ratigii baan ka soo dejiyey markaas baan gabadhii umulisa ma jirto oo meelaha dadi kama dhowa cisbitaal kama dhowa waxaan ku qasbanaaday cunugii anigu inaan ka soo qabto waan ka soo qabtay buu yidhi markii aan ka soo qabtay gabadhii waa gabadh dhiig baxday waxay u baahan tahay jeenan iyo wax la cuno mana jiro raashin kale iyo wax kaloo aan wado oo gabadhii la siin lahaa markaas baan wuxuu yidhi ratigii in aan qalo ay noqotay ratigii dhammaa ee gabadhu saarnayd ee gaadiidka ahaa ayaan qalay buu yidhi markii aan gowracay baan wuxuu yidhi beerkii iyo kuruskii inta shiilay ayaan siiyey gabadhii si yacni ay awood iyo tabar u yeelato ilaan waa qof umulay oo dhiig baxday sidaa markay tahay oo ay gabadhii jeenansatay maxaa ku xiga waa in cagta la maalo ee la socdo gabadhiina waa in iyaduna iyadoo umula ay dhaqaaqdo oo yacni safarkaa ay halkaa ka sii wado cunugii baan soo qaaday buu yidhi anigu gabadhiina way daba socotaa waxaan soconnaba markii dambe ayaan waxaan soo gaarnay buu yidhi meel webi ah webigii markaan soo gaarnay ayaan meel jiinka fariistay buu yidhi anigoo cunugii dhabta ku haya gabadhii weel yar oon wadanay ayay damacday buu yidhi in ay webiga biyo yar kaga soo darsato markii ay jiinkii webiga tagtay oo isleedahay aad soo darsatid baa yaxaas ku soo booday buu yidhi markaas buu weelkii faniinay weelkii oo faniin ah baa igu soo agdhacay buu yidhi gabadhiina yaxaaskii waa uu dafay oo wuu qaatay markaasba waxaa ii soo haray buu yidhi halkii cunug oo keliya tala fara way ka baxday meel aan wax dhiga aniga oola ayaan iska soo baxay buu yidhi waxaan soo socdaba markii dambe waxaan ku soo baxay buu yidhi mar aan isleeyahay reerkii gabadhu ay ka soo jeeday waa uu dhow yahay ayaan waxaan ku soo baxay buu yidhi ari meel daaqaya markaan arigii ku soo baxay baan waxaan ka daydayday buu yidhi rii irmaan ah oo caana leh markaan ridii arkay baan ku soo dhegay buu yidhi cunugu wuu baahan yahay leene naaskii rida ayaan afka u geliyey buu yidhi isaga oo cunugii yarkaha ridii nuugaya markii horena u malaymayn buu yidhi in ariga lala joogo ilaan gabadh baa ilaashanaysoo meel xaggaa u fadhisa gabadhii markay aragtay inaan ku dheganahay neefkii ariga ahaa ayay soo oroday buu yidhi ul ay waday bay igu garaacday buu yidhi markaan soo eegay oo aan soo jalleeco isiri maxay tahay waxa ku garaacayaa bay gabadhii carartay aniguna markii cunugii uu dhargay ayaan meeshii u dhow ta cunugii dhabta ku qabsaday iska fadhiistay buu yidhi anigoo iska nasanaya ayaan waxaan arkay buu yidhi dad soo yaacaya oo ay gabadhii hor boodayso
anigoo yaaban oo is oranaya talow adiga iyo cunugaaga maanta ayaa idinkugu dambaysa baa wuxuu yiri markay soo dhawaadeen waxaan ka aqoonsaday buu yiri gabadha cunugan aan wada ii dhashay aabaheed oo rag soo yaacayo soo ordaya ku jira waan sugay buu yiri markii ay yimaadeen ayuu ninkii odaga ahaa waxa uu yiri wiilkan waa wiilkaygii laga leexdo waa gabadhayda ninkii qabay isla markiiba cunugii aan dhabta ku hayay ayuu odagii iga qaaday buu yiri markaas buu waxa uu noo dhigay reerkii markii xaafadii la igeeyay ee la ijeenaniyay waxaan cuna la siiyay ayaa sheekadii iyo qisadii sidii wax u dhaceen baan uga sheekeeyay buu yiri inta markay dhacday buu odagii waxa uu yiri maadaama ay gabadhaydii ka dhimatay waxaan xigsin ahaan ku siinayaa gabadh ka yar hagaag gabadhu waa gabadhii garaacaysay ninkani markii cunuga yarka afka u gelinayay ridanaaskeeda iyadii ayaa xigsin ahaan loo siiyey sidaa ayuu gabadhii ku guursaday marka waxa uu yiri musiibo iguma dhicine mar ayay cirib saartay haddaba labadan musiibo marka la isbarbar dhigo teebaa weyn teebaa culus halka waxaan ka dareemaynaa sida loo kala iimaan iyo islaamnimo badan yahay ayaa loo kala samir iyo dulqaad badan yahay haddaba wax kasta ee ku soo qaabila waa qadarta Ilaahay sharteedii ama qeyrkeedii waxaana waajibku waa inaad rumayso haddii ay sharteedu ku soo qaabishana waa inaad Ilaahay ku xamdisaa oo aad ka barisaa inuu shartan ka saaro haddii ay khayrkeedu ku soo qaabilana waa inaad ku xamdisaa oo Ilaahay ka barisaa in uu ku siyaadiyo khayr waxaan rajaynayaa inaad fahanteen waa mahadsantiin